ورحمة الله وبركاته. halkan naga daawanaysan waa istaahil dhoof iyo anigu istaahil dhoof maantana hee garabkayga yaa tahay caadi maahan style dhoof waa gabadha ugu quruxda badan la Nairobi muuqaalkan haddii uu ku soo gaaro like sar oo saaxiibo badan gaarsii dhammaan daawadayaasha ku xiran halkaa waxaa leeyahay waqti walba iday taa wacano wanaagsan waa wasiirkii dhadhamiska oo maanta ka soo muuqanayo janalka style dhoof marka aada ugu faraxsanaa okay maanta aniga iyo Cabdoosh waxaan isku qabanay dhaylo marka dhayladaan isku qabsanay xilna waa lagu magacaabay xilna waa lagu magacaabay qaybta gabdhaha maraq dhadhamis shaafta iyo xilaa isku yeeshay nasiib waa leedahay maxay maraq dhadhamis meed wasiir agaasimaha dhadhamiska okay agaasimaha dhadhamiska ayaa la magacaabay dhanka haweenka sida kala Cabdoosh yare wuxuu dhahay ani meeshan galo way galan tahay maxaan ku dhahdaa cuntadu waa free chiefku waa free nasiib waa leedahay qof maanta xilli cuno isku helay ma jiro aday marka nasiibka ku soo doontay marka aad ma nasiibka ay soo doontay marka waxaan ku leeyahay Cabdoosh Nairobi ka waran qaasatan meesha aad ka degan tahay sabaaxili maxaa kamid wax mi faansiiso sabaaxiliga okay waxaan ku leeyahay karibu Kenya karibu Kenya karibu Kenya waxaa la dhahaa ku soo dhawow Kenya karibu Nairobi ku soo dhawow Nairobi okay marka adigu marka maxaad leedahay maanta Nairobi jawigeeda iyo maaragtay hotelka aad ka degan tahay waa Dikale waa hotel aad u qurux badan Backland anagana aan kugu soo booqanay maantana dhaylada anaga isaga waan isku dagaalay marka waxaan leenahay bal YouTube-kayga ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad maadaama marka kuugu horeysa uu yahay maxaad ka leedahay asxaabta style dhoof asxaabta style dhoof qof walba hore uu sheegay oo muuqaalka gaaro muhiimadda waxay tahay inaan like saartaan oo saaxiibo badan la gaarsiiyo subscribe-ka loogu cimaamado la sii share gareeyo dad badanna la gaarsiiyo maadaama style dhoof maanta ay nasiib u yeelatay xil iyo dhaylo dunida wili kama dhicin هذا ساكي مكوت شنيسة ماي ساكي أنا كنت شنيد هذا حالي ده بحيل على قوم مقعبة وسيرك دمسكة دم أنا ما أنت ده أنت بدنا وده دمية ما أنت ويجب مقطعه بلنا يا عبيتان بدن ما كبدن أنت بدن بنعني مركب ليلة قاعد بيجب مقطع ما لقيا مسوا إسعزلي هذا ما اسمع سيلا وحضيره ودنا إلى يركل بحارة سيدا عملنا سيدا سوي مركب waxaan leenahay marka waa soo dhaweynaya asxaabta Durdur Media waxaan leeyahay welcome to Nairobi ku soo dhawaada Nairobi mar labaad iyo saddexaad waa gurigiina labaad anagana waan idin fadhinaa waan idin joognaa Cabdoosh adigana ku soo dhawow Nairobi waa magaaladaadii waa magaalo Soomaaliyeed oo kale Muqdisho iyo halkan waa Sem marka si maxaan ku dhahdaa nabad ah oo konfadhiya oo macnaha aad wanaagsan ayaad maaragtay ugu soo dhawaanaysaa cabsina ma laha diyaar waaye sidoo kale halka waxaa ka salaamayaan dhammaan saaxiibada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo dhan walba ay noo taageeraan waa wada salaameynaa khaasatan qurba joogto waa idin wataa yaalis ya nin qurba joog oo yacayna aan ma arki koodha inta badan way i taageeraan wayna i dhiirigeliyaan oo waxay dhaana Cabdoosh waxaa noo soo gudbisaa wax soo saarkii dalka wanaaga dalka kalsoonida dad isjecel aan noo soo gudbisaa ma sha Allah anigana sidaas ayaan ku leenahay waxaad soo gudbiso barnaamijyo aad u qurux badan aanay ma soo gudbi qaraxa dhacay iyo nina midi lagu dilay ana ma soo gudbi inaan dadka ka naxeen ma rabo ummadda Soomaaliyeed inay faraxsanaadaan oo farxadooda ka shaqeeyo xilli walbana u soo gudbi barnaamijyo iyaga xiisa gelinaya okay ku soo dhawow Nairobi maadaama oo aad hadda Nairobi timiday waxaan u maleynayaa inaan barnaamijyo badan wada duubi doono diyaar waaye challenge-ga doorada dheelina oo waa isku kala soo tamo okay su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo Nairobi ma laga yaabaa inaad ku guursato aniga naag lacag la daaya la diyaaro okay Nairobi waxa imaada gabdho naag shiid maro wala gabdho dibadda ka imaada gabdho dibadda ka imaada jiro oo maaragtay ragga waxoogay iyaga ragga biisha jiro
daale biila diyaara ay oo aan wax leeweydineenin bangiga inaa buuxsadaa raba asxaabihi markaan lacagteeda inaa aruursado waaye 3 sano ii hartay ololaha gali rabaa ololahaad gelaysid baa raba inaa wax kaa weydiiyo maadaama senator aad rabtid inaa istaagtid de soomaalina maaragta waa iska dhib badan tahay dagaal iyo balaayo iyo fefa wax lagu qaadanaa qaabkee baad rabtaa inaad ku qaadato ani wallaahi inkastoo aad jecleen 4.5 in wax lagu qaato laakiin dantii daruufta markay imaado oo qabiil wax lagu qaadanayo nin dhulka ka dhashay ma lahan nin walba qabiiluu ka dhashay qabiilkaana ku doonanaynaa haddii soomaalinimo lagu doonanayna diyaar waa isku kalsoonahay maanta wax walba oo la dhoo ana diyaara waa anagana waan ku soo dhaweynaynaa maadaama aad senator tahay oo u istaagi doonto laakiin hawaaraha Soomaaliya waa u duceynaa hawaar qabiila haasto ilaahay ha ka dulqaado caafimaad ilaahay ha keeno oo soomaalinimo ilaahay soo celiyo okay asxaabta waxaan idin leenahay kaasina waxa Catoshire oo maanta aan kula kulanay hotelka Degaale Backland oo qaybteeda VIP da ka degan marka waxaan idin leenahay like subscribe iyo share channel